sheekh Cabdiraxmaan culimada adilaahay ka baqaleedahay aad maaragtay canaanta u jeedinayso aad maaragtay u jeedinayso dhiirigelinta u jeedinaysan ilaahdee adaa kow ka oo kamida adiga hadday hor fadhiyo waraysiga yaa qayb ka inta aad kuwa kale la hadlayso adigu maxaad isula hadli weydo intaad adigu kacdo oo aad 2 iyo 3 wadaad ama 4 wadaad ama 5 wadaad ama 10 wadaad intaad awoodda ka haysato maxaad u tagi weydo meelaha dhiig ka socdo oo aad u kala dhaxgali laadahay bulshada Soomaaliyeed soo adiga laftaada wajib uma saar wiil iyo abtig wiil iyo ina abtig wiil iyo ina eedadi wiil iyo siidig wiil iyo sodog waa noocaas waa wada qaraabo Soomaalinimadaba kasi koob haddana saana isu dhaleen haddana waa wada jaaro waa wada degan yihiin qolo walba waxay la leedahay qolada kale daris bay la tahay haddana waxa la rabaa in aan la isla daaqin xitaa naq hadii Ilaahay uu keeno nimcada Ilaahay uu keeno iyo raxmaadkaas waxa la rabaa in aan qoyska kale ka soo adeegan magaaladeeda bini aadan saa ku fakari kara dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah Sheekh Cabdiraxmaan dad ku doodaya inay diinta Islaamka u gargaarayaan ay wax u dilayaan ay hub u wataan Allahu akbar tahay 24 saac haddana qarax iyo dil iyo dhiig iyo maaragtay ka shaqeynaya oo maalin walba dad leeyahay waan ognahay Soomaaliya waxa ka jira ururada dagaalamaya oo magacii diinta ku dagaalamaya oo inay jihad ku jiraan aaminsan haddana suuqa bakaaraha qarax dhex dhigaya oo hooyooyinku ay ku ganacsanayaan yaa jooga ognahay culimadu kuwa wax ka qaban kartaa بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسر دوادا ورئيس جارو عن لي لنا يو شيخ عبد الرحمن محمد ظاهر والله يقانو شيخ عبد الرحمن خاشع وعو كم يجي علماء الصوماليات هاتم كنول ودك كينيا جارهان مقالة نيروبي عاصمة ودك كينيا وشيخ عن سكهلي انت برنامج كان السعودية وحان كدو الاستاجد دونا دور كعلماء الصوماليات مركا اعتمادو أرنتا حلنتا خلافات كبرشة دحضة يولي بديك جدك الصوماليات دحضة كل هذا هي culimadu ma ka qaateen doorkii muhiimka ahaa ee kaga aadanaa sidii dadka Soomaaliyeed ay u kala badbaadi lahaayeen arrimahaasi iyo waliba arrimo kale oo inoo raaci doona hadii rabbi qadara ayaan sheekha wax ka weydiin doonaa Sheekh Cabdiraxmaan oo aad baan ugu faraxsanahay sheekh inaan waraysigan isku helo soo dhaw waa mahadsan tahay nuur adiga iyo bahdaada waa salaamahay salaamullaahi calaykum wa alaykum salaam Sheekh Cabdiraxmaan khaashi waa kuma inta balorta dadku say u fahmaan qofka la hadlayo qofka waa Sheekh Cabdiraxmaan khaashi وأنا كان هرتك هور فديه وأنا محمد ظاهر خاشعنا وإسكننا يناسو تدكوا كلا تواضع بدنيه مركا وحلي هذا شيء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رقبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين خاشعين markii Ilaahay uu amaanahay nabiyashiisa iyo anbiyadiisa iyo ku tilmaamado khaashica waxa la yiraahdaa waa shay mulaasimsan qalbiga asaguna tawaadu baa jira sidoo kale oo Ilaahay ku rooyo khuduuc wax la yiraahdo jiro isaguna wuxuu galaabaliyaa jawaarixda marka maadaaba nin oo xoogaa ay arkeen inaan ahay iska dhimrin badan oo magaranaysa bay waxa ila bixin khaashi lagu yahay khaashi ila bixin marka anna waa sifo wanaagsan waa soo dhaweey ma sha Allah way Sheekh Cabdiraxmaan oo culimada Soomaalida waa dhaxalkii anbiyada culimada oo dhan badii culimada muslimiinta oo dhaxalkii anbiyada culimada muslimiinta ma culimada Soomaalidu dabcan qayb ka yihiin Soomaalidina meeshay maraysa maanta cidna looma sheegayo cid waliba waa ogtahay si wanaagsan doorkiina aw الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا آد بكلمة داس آد يويدين يسومهم أنتهي وأنا مدان ماشي أصفر يسنة مان إلهي فضلك وأنا مدان إلهي عمري قال كل يسو دورك علماء ومغيه علماء الصوماليات وح كل عي ولا جرن له مصيبة ربانية يكوها بستي دور كان
heshiisiinta islaaxa daatilbaynka haddii ilaahay kuu roon yahay kuntum khayra ummatin ilaahay wuxuu yidhi ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar ilaahay waa nagu ammaanay haddaan nahay ummaddan maxamediyada ah in aad munkarkana reebaysaan macruufkana amraysaan yaad ugu khayr badateen baa ilaahay yidhi ummadaha marka munkarkii cidda reebaysa oo taqaana macruufkiina sida haddii dadka loo fara taqaana waa culummadii waana ka fadhiyaan culummadii dhammaantood dhaliishaas ay leeyihiin darteed yaan waxaan ku talagalay aniga iyo wixii ila midaba inaan dhahno culummada Soomaaliyeed ay ilaahay ka baqay kac in badan waa sheegay waraysi kan ka horreeyay waxaan ku sheegay inay culummadu afkii hayaan laakiin ficilkii aan la arag muxuu yahay ficilka laga rabo ficilka laga rabaa wuxuu yahay masaajidda ay ka muxaadaraynayaan waa shay loo baahan yahay laakiin inay baxaan ummaddan waxay aadayaan ummaddan la baabi'inayo oo qof aan rabbi aqoon oo aan rag aqoon oon rasuul aqoonin oo dhiigga islaamku uusan haddii ilaahay kuu reebiyo biyo lacabahayo u yahay uu dilahayo oo haddana qabiilku shishay marsanayo oo labadii qabiil oo walaalahayd isugu go'ayso kaasaa la rabaa inay soo qabtaan oo tiirka geeyaan si ummaddu u hesho nabad iyo nolol ay u hesho tii bay ka fadhiyaan ficilkii culimadu dowladda islaam ma say tiirka u geenayaan waa dowlad islaam sideedaba bay dowlad ku yihiin culimadu dowlad ka sarraysa culimada ma jirto horaan u sheegay haddana waa sheegaya culimadu waxay xambaarsan tahay kitaabka ilaahay waxay xambaarsan tahay sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay anagu maxaan nahay manhajka aan leenahay waa diin ayaga noo xambaarsan madaxweyne ka sarreeyahay culimada ma jiro culimadii noocaas ahayd sida wax loo xaliyay yaqaanaan sida dadka loo heshiisiiyay yaqaanaan meelaha laga maray yaqaanaan diinta islaamkaas sida amraysa yaqaanaan sidii rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam calayhi iyo nabiyaashii ka horreeyay wax u xallin jireenba ayaga dhaxlo haya ma dhaqaaqayaan dantoodii khaaska ahayd yaa nin walba haysta wax u egna maaha wax ku habanna maaha bulshadana taa kaliya uma hayaan waa inay kacaan israacaan sida ay ku xallinayaan oo ugu fiican waa inay ficil qaadaan 100 200 300 gobol walba inta joogtaa culummada qabiil kasta ka kooban is aruursato ayadoo ay ka hortagto munkarka soo qabtaan ilaahay baryaan xal baa dadkaasi helaya laakiin hadday masaajidka ku ekaadaan kana maalin kasta uusan dilka joojinayn ummadda yaa lagu halay ka wax dilaya sheekh ya ka wax dilaya waayo waa midaan rabbi iyo rasuul midna aqoon diinta islaamkana aanu aabayeelin ba wax dilaya oo sidaad arkaysaba dilaya yaa soo diray kaas balaayo kala soo diraysa shaydaan kale oo u xabaalan soo diro iyo in fikirkiisu dirayo inta la egyahay intaba way suurowdaa intaba way suuragal way culimada Soomaaliyeed ilaaha ka baqaan baatay ilaaha ka baqan iyaga dadka faray in dadku ilaahay ka baqaan isdajiyaan dhibka iska daayaan dhiigga iska daayaan iyaga ahayd doorkaasin doorka iyagu ay lahaayeen baa ahayd laakiin iyagii baad leedahay iyagii baan leedahay marka masaajidka qaylo ka yadhimiya hadalkaagu nacam masaajidka qaylo ka yar waxa uga yeedhay culimadu waa kuwii annaga diinka noo akhriyay ee diinka islaamku ka soo gaaray waa tii uu lahaa imaamul haddii la ku yahay taabicigii weynaa xasan al-Bisri lawla al-ulamaa'u la saara an-naasu mithla al-bahaay haddaaban culumma jiri lahayn ummadu xoolaha kale noqon lahayd xoolaha oo kale yaan la waayo tacliimtii ayagu ay dadka bareen baa ka saartay haddii la ku roon yahay haddii la ku rahay xoolanimadii waxayna u saartay insaannimay u saartay ma garat haddaan maanta waa ku weydiinaya culumma aysan jirin dalku seen noqon lahaa macna ahaan diinta islaamka annagu aan haysano culummada noo wato ayadana la rabaa in lagu hago kana la rabaa in lagu hago dalka kan ninkii marka hayay hadduu asagoo gurigiisa la fariisto maxay noqonaysaa wax u sheegay dadka in la way culimada Soomaaliyeed waa fara badan yihiin meel walba ay joogaan meesha wax lagu dilaya culimada joogta meel aan ka fogeyna culimo kala joogta
meelo kale oo ka fofogna culimo kale ay joogta waa saas waa ay culimada ay tahay inay ku baxaan ma culimada la yaqaaneen magac laba ku wada socota mise waa nin walba oo diinta islaamka xambaarsan oo bartay oo culimo ah oo meesha ka agdhow ama jooga cidda fariintaada ku socoto nin walba oo isimka culimada sheegta ee diinta islaamka wax ka yaqaanaa weeyaan wax ku socota culimo gaar ah oo leeyahay hebelow kac iyo hebelow kac ma jirto waayo culimadu waa hal mid ah laba ma xilliga wali maanta lagu jiro waa markii waxa kale oo dhan inta la joojiyo loo aadi lahaa dhiiggan si loo joojin lahaa marka arrintaan oo kale mar faradul kifaaya noqotaa mar faradul cayn bay noqotaa maanta anigu waxaan malaynayaa inay faradul cayn ku tahay culimada waayo cid kale u maqan dadkii ma jirto way islaynayaan shaladan nuur falislayni laba wada dhaata isdilay culumma socotaanba waayeba qof kastoon weydiiyana ma arag buu leeyahay aniguna intii dhowr sanaa meesha waa i dhibaysay waana u dhuun dalool sidaa darteed waxaan leeyahay culummo qofkii kasta oo sheegta oo arrintaasi ay dhibayso arrintaas waxaad ku bixisaan maalkiinna iyo xooggiinna iyo maskaxdiinna waana inta aad dadka u hayseen waay sheekh cabdiraxmaanow haddaad tihiin culimada soomaaliyeed bulshada soomaalida indheheeda wax walba way arkaan waxba kama qarsoona idinkii baa kala socda oo kala kooxa iyo kala qaybo noqday magaalada Nairobi hadda joogo masaajidada xataa culimadu kuma wada tukadaan masaajidka sigiska qolaa ku tukata toolafka qolaa ku tukata aydka qola kale ku tukata daadka qolaa ku tukata idinkii waa 10 firqa sheekh waa saas culimada midaysan ee aad fariinta u diraysa waa kuwa haddii taadaas aan ku raac laftirkeeda inta ku tukata مثلا sigiska kale way midaysan tahay Soomaa waxbay qaban karaan مثلا taadan ku raacaya sigiska tan ku tukata waa iyaga laftooda soddon muxaadaro iska duubay hadda labadii bilood aan soo dhaafnay waa gar sidee ku midaysan waa waxaan arrintaas jawaabteedu tahay waa arrinta la wacyi gelinayo culimada aan u hormariyaba Ilaahay ka baqa culimadu waa kuwa lagu dayanayo horta sideeda bilaada waa qaa'idka ummadan Muhammadiyada ayaga waa akhlaaq xumada iyo hadii la ku cayda iyo waxyaabahaas culimada abigeedba ma qof culimaa ay shaqo kuma qof culimaahi kuma ahan hadii la ku roon yahay ay iyo wax af xumo iyo midna shaqo kuma la radiskan waxaan ku sheegayaa no diintu islaamku kitaabka jaamicul quraanka jaamaca iyo xadiidka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inta kale waxa iyaga laga qaato oo fiqiga oo fahamku kala duwanaan karo intaas wixii horta hadii la ku rooyaa usul aqeeda la iskuma khilaafi kara bataatama ayagu ta'wiil iyo ijtihaad midna ma ogola ما كان اسكو خلافسان ما لا اسكو خلافي كرا ما بقف خلافي كرا لما اركو اصول دينتا او عقيدته كسابسن ما وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله والرسول امرا ان يكون اللهم الخير من امره الهي رسولك سا ميل دغاي cid kale oo ka hadli kartaa xaga ma jirto furuucda la isku khilaafana kurtigeed ma ahan waa sunno kawniye ah اجتهادكو او اختلافك مننا ومحمود منا وهدي لك رويي وهدي لك مردود شيء او هدي لك رويي لا رديي ما قرات مذموم marka asxaab rasuulillaah ba isku khilaafay furuucda in badan dan hadda hal xabay wax kaaga soo qaado nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam dagaalkii markii laga soo laabtay ahzaab khandaq nabi gurigiisu yimid sallallahu alayhi wasallam hubkii buu dhigtay jibriil baa u yimid nabi maxamed ma mawjii waa iska dhigtay bi ha annagu ma aanan dhigin bi hadana malaa'ikti maxaa nimankii reer binu quraydo balantii waa buriyeen inaan ayaga gaarnana maahana maya xaggaanaad waana dhaqaaqaynba u dhaqaaq jibriil nabigu asxaabtu u yeelay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la yusalliyanna ahadun al-asra إلا في بني قريظة
ilaa bini qurada la gaaro yalla casarka lama tukanayo kelmaddaas nabiga sallallahu alayhi wasallam afkiisa ka soo baxday fahamkeedii yaa asxaabtii markii casarkii galay qaar dariiqoodii ku tukay iyagoo meeshii gaarin war maxaa u tukateen waxaan u tukanaynaa bay yiraahdeen nabigu degdeg uu ka waday maahane ilaa 3 kun baa la sheegaa baa tagtay degdeg uu ka waday maahane meeshii gaadhu ka waday fahankaas u qaateen wayna aqbalaysaa in la qaato kuwii kale waxa yiraahdeen ilaa aan tagno ma tukanayno hadduu rabo waqtiga dhaaf nabigii sallallahu alayhi wasallam kuwii kale xaq ku tukaday rasuulka waa loo sheegay sallallahu wasallam alayhi cidna macana labadoodii qol cidna macana waayo labada way ihtimaashaaday gaara markaa tukataan tukada waa ka soo bixi kadhaa ku tukada adila war degdegana way ka soo bixi kadhaa shayga inta salaadu gaarin meeshii taga in badan oo salaadii baa waxa weeye bisinkeedii ka warqabtaa la isku khilaafsan yahay waxa la isku khilaafsan yahay nikaaxiga la isku khilaafsan yahay kida tiradii ka batanshaa shaygaasna culimada iyagoo isku ah arday iyo sheekhiis imaam Maalik oo kale Shaafici oo kale Ahmed bin waaba madaahib bay kala yihiin waana wiil iyo ardaygi wiil iyo sheekhi iyo wiil iyo sheekhi bay marka waxaan leeyahay culimada oo u baaqo jeedinaya kitaabihi miyaan kitaabihi ahayn diintaan diintii ahayn ayda joojiye hawada aad soo marinaysaa fadeexaynta aad hawada soo marinaysaa joojiye culimada Soomaaliya khamraan buu waxaan soo daano ma kala reebay maantana maba ahaba maalin la joogo korkiina dhiigi ku daadanaya gurigiina ku daadanaya walaalka kula mid oo muuminaha baa la daadinaya mid kale hadii Ilaahay ku rooyaa barakacaya war arintan Ilaahay waa in kula xisaabtamayaaye culimada Soomaaliyeed wax ka qabtaan leh dadka Soomaalida qaar badan oo kamid sheekhu waxay aaminsan yihiin ninka culimada ah wax laga dhigaysanayo waa inuu san urur ka tirsan isagu laakiin isagu firqa yahay ama urur yahay ama urur maaragtay nooc dooni ururkaas aad ama koox gaar yahay ninkaas isagii waa wax gaar ka shaqeynaya waa saas ninka culimada ah taqiga loo baahan yahay ummadan inuu maslaxadeeda raadiyo ma yahay in urur ka tirsan horta meeshaasan waxaan ku leeyahay wax yar bayaaninaya horta shayna waa shaygan hadda ku sheegayay oo fahamka ku saabsan asaga anigu waxaan taaganahay hadda xagga ka tirsan tahay iyo hadda xagga ka tirsan tahay isku ceebaynba mal maxaa horta dagaalkaba keenay diintan balaaran ikhtilaaful hadii ay ku culama rahmatul ummah way diintan balaaran ee waasica fahamka adigu aad ka fahamtay ama aad manhaj raacday iyo hadii ay ku roon yahay hadii ay ku roon yahay raacday hadii ay ku roon yahay madhab aad leedahay ku qasbay qofku inuu madhab leeyahay ayadaas meesha rabtid hayso adiga nuura laakiin tan aan wada taa tan waa mid noo wada taa oo shaygan maanta jooga oo ahamka baa la aadaya waxyaabaha kale oo ka hooseeyo dhan oo loo soo jeesan karo waa laga tagay maanta hadii hal nin oo raggaas wax gala ah oo waxna haysta uu u istaago shacabkii uusan bawaay dadkii wanaagsanaa uusan waay odayaashii hadii Ilaahay ku rooyo aqliga u saaxiibka ahaa oo hadii Ilaahay ku rooyo xigmadda u saaxiibka oo sharafta lahaa baa raacay dhalinyaradii baa sidoo kale sharafta lahayd baa raacaysa culimadii sharafta lahayd oo dhan baa raacaysa marka waxaan waayay anigu xitaa haba ahaadeen kooxe wax u dhaqaaqan waayay maalin kastana waxa daadanaya dhiigii dadka walaalaha waayahay sida aan ka dhageystay nin mas'uuliyiinta Soomaalida kamid ah xilligaas haddana ka laftada kamid ah magaalooyinka Soomaalida kamidana joogay markaas iyada wuxuu culimada ku dhaliilayay in iyada oo magaalada uu joogay marka mas'uulka ka ahaa uu dhiig daadanayo qaraxyo ka dhaceen oo dad lagu laayay in jumcadii soo gashay masaajidka lagaga hadlay tarbiyada carruurta ama tarbiyada awlaadda dhiigina masaajidka garabkiisa uu yaalay iyo dadkii la dilay yaalaan culimadu markii dadin culimada Soomaaliyeed eedahaas oo kale marka la idin jeediyo miyaan ahayn wax idin qabanaya sheekho waan ku celcelinayaaye horta waxa la rabaa qofka markaad wax catusto inuu qirto ama adigu haddaad wax baal martay uu ka soo jawaab culimada Soomaaliyeed fariintan u diraya waxay muxaadaradii hore waa ku jeediyay waa taad sheegaysid bilaayin dollar baa lagu bixinayaa wax markaas cibaado way tahay waa shay sharaf leh
laakiin waa shay laga maarmi karo oo shaygan iyo shaygan isuma dhigmaan dhiigii daadanayay ee dadka islaamka ilaahay meeshaad aragtay uu geeyey oo baaba'aya oo carruurtii la laynayo oo dumarkii la laynayo oo moogtahay haddeertan waxaan baranaa wax la yidhahda moogtahay dadkii waxaa la gaaya naagi iyaa la dilay kan ninka laftiisa yaa yidhi hala dilo islaamkaan waa qabay yaa yidhi hala dilo macnaha soomaalida dhaqan u lahayd inayna dumarka iyo kala dilin iyo maxasta dhaqanka waxaa la rabaa haddaan dagaalaynay leeyihiin layskama dili war dagaalkaanaan la ogolayn dagaalka hore asagaan la ogolayn inuu sharci ku dhisan yahay maahane dagaalkan dadkan lagu laynayo ee dadkan muuminiinta isdilayaan ee la laynayo lama ogola midbaa wuxuu igu yiri waxaan tagay biyo meelahan dagaaladu ka socdaan waxaan arkay biyo niman laba qolo iska soo horjeeda qolo ka mid ah oo lo la daaqayso lo yaa la daaqayso lo yaa la qolada xag ka soo jeeda soo waxaan yiri caqligoodan fiirilayaa looda ma qalataa xameesha iyagoo yiri gaajaan haysa markaas waxay yiraahdeen looda xaaraanta markaas aan yiri ma xaaraan ba waa xaaraan haye way ragaas meeshaas ka soo jeedo qoryaha wato walaalihiina ama mid geel iska goobayo meesha maray ari goobayo dilaysaan soo goorma xalaal noqdaan digiisa goorma la xalaalay macnaha saci inay qashaan xaaraan bay arkaan xaaraan bay arkaan saci inay qashaan xaaraan bay ninka raadinayna oo dilayaan ninka raadinayna waxaan leenahay dhaqankaasi saca in la qashaan ma fiicna waa sax waa xaaraan laakiin kii ka weynaa u socdaan kana way ka tagayaan waxa aad sheegaysaa dhab haddii dadka culummadu dhex socon lahayd ee wacyi gelin lahayd fiir culummadu ilaahay karaamu siiyo maasha Allah culummada ilaahay wuxuu yaalaa inna awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alladhiina ilaahay waa tacriifin alladhiina aamanuu wa kaanuu yattaquun bay ku sifaysayn culummadu innamaa yakhsha allaha min cibaadihi culamaa soo arki maysi marka ayagu ilaahay hadday baryaan oo ay yiraahdaan xitaa inta meel itaagaan caraafaha oo banaan oo tagaan oo arintu dhibto in ilaahay nagu soo celin waa ku baryeena ummadda ilaahay wuxuu u keeni lahaa hadii laakiin huduu baa ilaahay keeni lahaa xasil baa iimaan lahayd dadka iimaankooda u soo laaban lahaa wax badan bay culummadu galaano sidii looga bixi jiray iyo tartiibtii iyo sunnada nabiga iyo kitaabka haystaan kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga ka haystaan sallallahu alayhi wasallam marka ninka arintii yaqaanay oo asagu looga dambeeyay ee muallimka ku ahaa oo sheekha ku ahaa oo bafati ku ahaa haduusan u dhaqaaqin ka hor yaa laga sugay walaalahan hadda wax naga duubay aniga hadii la yiraahdo xir xagan ka mara ma qaadna Soma dadka kale saasay yihiin sheekh dadka kale saasay halkaas ay yihiin culumaduna waa adiga kale oo taqaan ba halkaas waxaan marka culumada ugu dhaganahay waan jeclahay agteena sharaf bay culimadu sidee kaga hortagi karaan waxa socdo waxaad ku canaananayso ee aad leedahay waa qaban karaan ma inay ficil ku qabtaan bay awoodaan mise inay carab ku qabtaan bay awoodaan ma inay qalbiga uun maaragtay arinta ku hayaan bay awoodaan culimadu maxay awoodaan ay qaban karaan waxay awoodaan xadiiskii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastadi' fa bi lisanihi falyughayyirhu bi yadihi bay awoodaan bi yadihi bay awoodaan inay tagaan inay arintan ku joojiyaan ficil bay awoodaan sabab ma ku sawaynaya al-awwal horta tira wali fariga bateen oo Soomaaliya culumada iyo xirta u badan waan ogahay halka sheekh adiga gurigaaga waxa laga yaabaa inaan cidna u soo hoyin ama gabadha iyo carruurta jooga laakiin halka sheekh agtiisa waxa joogta markay u yaraato 600 700 sheekh bal sheekh kala ku dar iyo xirtiisa intee isla noqdeen inta wax ka maqlaysa iska xirah soo badan yakun ka asaba ka badan Soomaaliya oo kunkaas horta ka badan markaan ku sheego maal ahaan waa awoodaan oo waxaad ogtahay oo awoodaan markay isugu yimaadaan meelaha ma garanaysaa xafladaha mu'tamarada kiraaga tabalayin lagu bixiyo intee culummo laga soo wadaa wadan sare oo loo dira imisa lacag lagu celiyaa taana waan ku tusayaa oo ayaduna way awoodaan xadiidku waa badul saaraya culumada xadiiskaas waa badul saaraya ayagoo awooda inaysan u dhaqaaqayn halula xisaabtamaya haddana lisaankii wayba wadaan kaas hore u sheegay oo masaajida waa biyadihi laakiin biyadihi oo awoodaan yeena qabanin yeesan qabanin
waad awooddaana kacan leen maalkiina waad haysataano sideedaba wax khayr haddaa aragto khayr oo dhan isku dar maal ma ku awoodaan maal marha khayr oo dhan haddaad aragtaba oo la samaynayo jeebka qofka mu'minka ah iyo maalkii ku jira lagu samayn lahaa dadka wanaagsan oo sharafta leh ee Soomaalida ee muuminiinta jeebkooda ku jira oo maanta hadii la arko 200 oo culimo ah baxday in Allah inta sama jeclaa way istaagaysa waa huba ajiib way Sheikh Abdurrahman culimada adilaahay ka baqaleedahay aad maaragtay canaanta u jeedinayso aad maaragtay u jeedinayso dhiirigelinta u jeedinaysan ilaahdee adaa kow ka oo kamida adiga hadday hor fadhiyo waraysiga bixinay yaa qayb ka inta aad kuwa kale la hadlayso adigu maxaad isula hadli weydo intaad adigu kacdo oo aad 2 iyo 3 wadaad ama 4 wadaad ama 5 wadaad ama 10 wadaad intaad awoodda ka haysato maxaad u tagi weydo meelaha dhiig ka socdo oo aad u kala dhaxgali laadahay bulshada Soomaaliyeed soo adiga laftaada wajib ma saar aad baad u mahadsantahay anigu horta waxaad marqaati iga tahay inaan muujiyay lisaanki waa dhawaaqay joojina mayo waxa aan sugaya anigu waa 4 iyo 5 kale oo igu qalbi ah oo arinta ay dhibayso aan ishelno waxaan xitaa u duubayaa halkaas aan isugu nimaadno xitaa iyo ballanta yaa xitaa waxa marka diyaar baan u tahay diyaar baan u ahay ma ahane cimrigayga inta ka hadhay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha oo islaynaysa intii ay noqonaysan nabad ay noqonayso yadan ku bixinay dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah Sheikh Abdurrahman dad ku doodaya inay diinta Islaamka u gargaarayaan ay wax u dilayaan ay hub u wataan Allahu akbar tahay 24 saac haddana qarax iyo dil iyo dhiig iyo maaragtay ka shaqeynaya oo maalin walba dad leeyahay waan ognahay Soomaaliya waxa ka jira ururada dagaalamaya oo magacii diinta ku dagaalamaya oo inay jihaad ku jiraan aaminsan haddana suuqa bakaaraha qarax dhex dhigaya oo hooyooyinku ay ku ganacsanayaan yaa jooga ognahay culimadu kuwa wax ka qaban kartaa iyagii baa culimo sheeganaya wadaad sheeganaya dadkiina halaagaya oo muuqataa kuwa aad leedahay waxa laga qabto ma kuwaasa mise waa qabaa'iladan reemiyiga ee qoriyaha soo haysta nuuru horta dadkan hadda mudug iyo galgaduud iyo ku dagaalamaya ilaa Ethiopia waxa ka jira tusaalaan ka soo qabanay ku dagaalamaya markaan tusaale ahaan ku soo qabto dadkaas nimankaas aad sheegtay ma joogaan ilaa shilaba agteeda ma joogaan waa saas midda kale nimankaas horta waa niman dawlad la dagaalama aniga Sheikh Abdurrahman hadii dalku iyo xalismo intaan hadda dhiig iga joogsado xal oo in noqdo inaan keeno waa isku dayay hadii Ilaahay laakiin waxa la yiri tiisa gabe tu kale ma kalkaala la yiri nimanka marka waa niman horta dawladda la dagaalo aniga Sheikh Abdurrahman maanta hadda inaan ka hadlo ma rabo sababku waxa weeye laga yaabay haddaan maanta xagga xalino oo dalkaas hadda dhiig uu ku daadanayo nabada lagu hayo nimanka waa nimanka fikri loo ku dagaalamay dawladda in la dagaalama maanta mid Abdurrahman ka jawaabi karo ma hay aadina mahay laakiin midda aan anagu awoodno yaa waxay tahay midaan kuma saabsana caqiido ayad waa wiil dilay ku rooyo Mooriyaano og laftirkiisu ninkaan inuu xaraan ka yahay dhiigiisu og laakiin ay ku dirayso la quntinayo la leeyahay reerkiini baa la xeradan hooyada baa degi jirtay badda iyo xerada xera cidla oo ari ku xaroob oo boqol wiil oo geesiyaala oo dhag casal lagu dhameynay waxaas wax la fiirsan kara wax ka soo baxa ma xero wax ka soo baxa lama xero ka soo baxayaan xitaa roob kuma ila waa meel dhiig ku daadanay roob kuma maanta la waxaan daawanayay ariyo iyo gaariyaal waaweyn candhamaylayaal iyo waaraadiyo ariga soo daldalayo la leeyahay dayrtii u goysay annagana halkaan waad ka warqabtaayo anigu ari baan leeyahay waxaan u malaynayaa arigayga dhamaa roob baa qaaday qaarkii meel la dhulkii waa la istaagay xitaa waa loo geyn waayay sokor wallaah waa loo geyn waayay waa halkaan gaarisa ka sokaysa soo garan maysi arigaas waa arigaan rabo inaan hadii Ilaahay rabmaan inaan halka ku bixi ku xalliyo wax kale ma haya inaan saayida ka dhigan rabo culimada raacida hadaan helo saayida ka dhigan marka raggaas marka okay kuwa aanu nimaadno inkastoo kuwan kale laftooda inkastoo tiri inaan hadda aad uga hadla ma rabo laakiin dhinaca kale waxaan ognahay culimada door baa uga banaan waa sax doorka uga banaan waxa kamid ah fikir bay wax ku wadaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dhagacasta aad ka hadlaysa kamida
oo aan diinta laga yaabo inaan aqoon u lahayn ayaa aayado quraan lagu dul dareerinaya dadkii muslimiinta adigoo kale iyo anigoo kale iyo ahaye salaadooda tukanay meelooda iska joogay iska ganacsanay iska wardinay magaalo loogu sawiraya waa saas inta aayado loo soo dareeriyay kuwa laftooda in waxa ilaahay idin baray diinta ee saxda intaad maaragtay kaga horgeysaan aad fikirka kaga hortagtaan soo iyadana wax idin faran culimada Soomaaliyeed faran kaliya hadda su'aasha kugu ma socoto waa sax culimadu sideedaba waxaanan markii horeba soo kala reebin oo istisnaba gelinin waajibka saaran baa wuxuu yahay xal al-islaax bayna naas baba saaran ba haday culimo kale tahay wala soo reebay Abdullah ibn Abbas baa nimankii khawaarijta iyo nimanku dhuumanaya markii sayiduna Muawiya iyo wax ka dhaceen sayiduna Ali Abdullah ibn Abbas waa ninkii u tagay ee dhex galay wuxuu san qabinin markaas godob ma qabinin asoo la munaashaqooda u tagay markuu u tagay kuwana waxay ahaayeen kuwa hadee khawaarij ah kuwana waa kuwa la khalday Allah wixii la khaldo dhan waa yimaadeen wixii kalena islaamka marka isugu tago cagta mariyay ma garat culimadu horta waxaan leeyahay maksuura galba wax aan bartay oo waxa jirta lama kala yahay inta anu qaxootiga ka kuma ka tirsanay ay ma sha Allah shay aan ka bartay baa jirta oo aad u cajaayib markaan soo degnay ka kuma ka meelahan degnay waxa la yiri laba nin baa ilaan maalin kasta tartanto ofiisyada iyo xafiisyada iyo waxay geystaan warqado ana community-ga meesha u sareeyo chairman ka noqonaya iyo ana ka noqonay ha waa soo gaabinaya labada nin gaaladan waa wax kale waxay u galeen waa u kuur galeen nin walba marka waxay u soo dirsadeen reerkiisa iyo caruurtiisa iyo soo la dhaqmo dad sirdoon ay u dirsadaan laba bilood bay wareejinayaan sida xaafadahooda la dhaqmo xaafadahooda la dhaqmaan maalintii dambe yaa waxa la soo ogaaday yaa gabar waxay geysay labadii nin kamida gabadhu qaybaa dacwad waxay geysay xafiisyada iyadoo ka warqabtay inuu taga ninkaan iyo asoo madax raadsanayay waxay tiri ninkaasan dacwo ka waa la fiirsho waa ninkii UN maalinta ma noo yeedha marka kalmadaan ka bartay baa jirta waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan inii yeelno hoggaan gudoomiyaha laba nin baa waxa jirtay yiraahdeen oo imaan jirtay xafiiska oo waxa weeye ayagu ku tartami jiray oo nin walba wax qabadkiisa soo bandhiga jiray waxaan weydiinaynaa Soomaali weyntiin halkan fadhiya iyo dadka fadhiyo oo dhan waa la isku jiray Soomaali kaliya ma ahayn nin reerkiisa iyo caruurtiisa ka adkaan waayay bulsho ma loo dhiibi karaa bayra bulsho oo wax walba qof walba nooc walba ku jiro ma loo dhiibi karaa nin reerkiisa ka dacwoonay hal mar waxa la yiri maya hadda waxa yiraan nimankii nin baa saan noqday ninka kale yaa la idinku wareejinaya bari ka maalin hebel baa inii ah gudoomiyeeni meesha la soo qaadanayo salaas waxa weeye culimadu gurigeedii baa dhika daadanaya horta intay kuwa dawladaysan ba u gudbi lahaayeen markay madanka helaan oo jaaniska helaan oo dalku aslaax u noqdo oo guriyihii ay deganaayeen nadiifiyaan waa ninka asagu raba inuu wax la munaadaroodo la munaashaqoodo oo la fariisto gurigiisana wax la yaalo aad waa maasanta Sheekh Cabdiraxmaan waayahay dadka Soomaaliyeed ee istilaya markaan culimadaba ka tagno maxaa ku kala maqan waxa ku kala maqan waxa jirta wax la yiraahdo horta hamiyatul jaahiliya waxa la yiri ashcaartaydiba waxa kamid ahayd aan tiriyo halkaas aan ka tiriyo dhibaatana oo marba iyada dhan soo bandhigi doonaa qowmi yaquluna hamiyatu izzatun wal izzu fi taqwa wa fihi al muntaha qowmkaygu waxay leeyihiin on Soomaalida oo dhan u wado hamiyatu izza qabiilnimada wa izzi ya sharaf wal izzu fi taqwa ana waxaan idhi wal izzu fi taqwa wa fihi al muntaha alla ka cabsiga ah ya taqwa asay ka bilaabata kuna dhamaata meel kale ma jirto waxa dadkaas isku laynaya oo ku kala maqan waxay tahay xamiye wax la yiraahdo oo ah reer hebel aqligaaga qof walbaaba oo maskaxda horta halkan ku jirtaa waa motorku muxuu rabaa furaha inta la geliyo in la daaro markaasuu layrarka shida markaasuu gaariga dhaqaajiya diyaaradda markaasay haadaa motor dansan maxaa laga fishaa wax qabad muu leeyahay miskaxda Soomaalida waa dansanta ninka dagaalamaya wuxuu og yahay inuu dhimanayo waxa ka horeeyana
inaysan wax fiican ahayn waa ka warqaba haddana waa sii ordayaa wakaa sii socda oo sii gana yaa meel u fadhiya ma taqaan odayaal fiican baa ku jira oo suldaamada iyo ugaasyada dad sharaf lahaa jira mid xun baa wuxuu leeyahay tallaa aabbahaana ma qaadan jiri oo iyadana kuma dhalin meel lagaa keenan anugu hadda maba fahansaniba marka kaca meesha geedkaas quraca annagaa deganaan jirnay oo iska lahayn waa geed quraca qalalan 200 baa la dhigayaa 200 baa la dhigayaa 200 baa la dhigayaa ilaa lagu dhamaado markii la daalaa la kala istaagayo marka indhaha la iska fiirinayo dadkaas waxaan leeyahay oo baaq u diraya waa ii kala baabaysan yihiin dhalinyarada al-awwal waxaan leeyahay dhalinyaro waxaa tiin dad dhagacaas ah oo ubaxa oo hadeer soo kacay gabdho iyo wiilal waxaad rabtaan lahaada adduunkii baa idin cusub gabadhu waa guursanaysaa awlaad bay ka rajaynaysaa ilaahay waxay ka rajaynaysaa nolol macaan wiilku waa guursanayaa gabar inuu haddii la guursado nolol macaan caruur ka tago saasaad danaynaysaan oo qof walbaaba inuu ku fakeraa aad leedihiin aakhirana wax idin jira ma jirto oo idinku jannadiina miinaan soo arkoon waa walaalka waxaad dilayso nabi maxamed wuxuu salaatu allah wasalaamu alayhi idal taqal muslimaani bisayfihima alqaatilu iyo walmaqtuulu wahuma fi nnaar labaduba waa helnaa nabiga waa la weydiiyey salaatu allah wasalaamu alayhi waxa la kala dilay kan wax dilay la garaye waa baal maqtuul kan la dilay muxuu law kana harisan biqatli saahibi bi nabi salaatu allah wasalaamu isna saaxiibka dilay maray iyo degdegay war wax adduunkii aakhira ka hoog waa wax la isku habaa inaad adduunkiina ka tagtaan idinkoo dhagaca soo xaad leh oo wax ka tabcan ama haddaad hadeertaan gabar guusatay asay aad ku reebtid oo caruurtaadii agoon aad ka tagtid aakhirana wax kaaga horeeyo meel laga soo laabanaya aan la arag aado miskax shaqaynaysa maahan miskaxdaas waxaan leeyahay ka joogsada diida walaalka iyo aadi mayna dhahaya asaga laftirkiisa la dega kuwa kalena la degeen isdhex mara odayaashii wax waa qaban waayeen iyo haddii la kuure dadkii kale idinku dadka isku soo jiido dhalinyaranimo u sheekaysta oo galaba meel dega oo isu imaado qoriga dhiga taasaan horta dhalinyarada leh odayaasha waxaan leh odayaashu kuwii jaahiliyada oo carabta ahayd waxaa jira xilfi la yiraahdo xilful fuduul oo 5 qoys oo quraysh inta isu timid ay yiraahdaan magaaladan Makka yaanaan dulmi qof lagu dulmiyo raali ka noqon ama ha ahaado Makka u dhasho ama yuusan u dhalan waa jaahiliya hadow waa intaan risaalada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed baa nooga sheekaynayo amaanay sallallahu alayhi wasallam kitaabaha si yarka dhiga nin baa lagu dulmiyay oo nin la yiraahdo Caas ibn Waa'il baa dulmiyay nin reesabidi ah oo keensaday hadii la ku roon yahay alaab badeeca uu ka qaato ninkii marka uu dhawaaqay waa soo gaabinaya jabal ila jabal Qubays buu fuulay aduu ashcaar buu wuxuu ku muujiyay madlamadii iyo dulmigii laga galay wariyaa waxay xaqayga ila raadinayuu yiri Zubayr ibn Abd Mudallib nin la yiraahdo nabiga adeerkiisa sallallahu alayhi wasallam alayhi ya arintii ka dhiidiyay oo ka socday shantii xilfiga samaysato isu keen Abdullah ibn Jud'an oo qolaliya ra'iisu bani Tamim aha qoladii shantii qoys kamid aha gurigiisu isu keen warinkaas la dulmi markii bay kacay nabigu waa kamid sallallahu alayhi wasallam alayhi xilligaas 20 jir bay culimadu ku sheegaan taabasiir ku sheegaan risaaladii ma helin nabinimadii xilfigii uu ka qayb galay ninkii baa laga soo riday badeecadii iyo farta laga saaray oo way diideen odayaashaas nabadoonnadaas dadkaasi ha ka liidanina leh nabigu waa amaanay sallallahu alayhi wasallam alayhi ka bacdi wuxuu yiri intaan ilaahay risaalada igu sharifin arintaasan ka qayb galay mana jecli buu yiri xumran nacam oo dhan xoolaha gudgudan oo dhan hadii la isiya iyada bedelkeeda taa bedelkeeda taasan ka jecla low ud'a bihi ila al-islaam la ajabtu bi nabi sallallahu alayhi wasallam hadda la igu yarana waan ajiibayaa bi aad buu nabigu u amaanay sallallahu alayhi wasallam ha ka liidanina jaahiliyadii baa taqaanay inta xilfi samaysataan cidda gardaran oo dhan isugu taga ayadii quraanka baa in amrayna isugu tagtaan wixii gardaran xadiidka nabi maxamed baan array sallallahu alayhi wasallam inaad isugu tagtaan meeshan bedelkeedana odayaasha waxaan leeyahay taa qaato ha ka liidanina ragaas raga ha ka liidanina aad buu islaam waayahay dhowr qolad ka dhawaajisay dhalinyaradu mar walba wadada dabka lagu shubo xagga odayaasha iyo ganacsatada aanu imaado ganacsatada ku horeeyay ganacsatadu soo kuwa hubka gadaya waxaan ognahay hadda beeluhu sida dawladihii u dagaalama beel waliba waxay haystaa 37 su
iyo maxaa la dhihi jiray qoryo waaweyn si wanaagsan oo gawaarida laga rido si wanaagsan shikayaal si wanaagsan daba jaac warkiida aakay isagu tira male balaayo dhan bay haystaan waxaas qabaa'iladan ganacsatadooda iyo dadka lacagaha haysta iyo dad wax isku dardarsaday oo soo gaday ganacsatada aad leedahay maalkiina ku qaboojiya waxan soo kuwa dabka shidaya ma ganacsatada waaba horta waxa jirta wax la yiraahdo tadakira yaa jirta baraarujin ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada bedela inkastoo ay jiraan anigu aan ogahay kan gadaya qabiilka ma wada koobna qabiilku ma wada gadayo dhalinyaradu ma wada gadayso laakiin ganacsatada gadaysaahi waa kuwa uun markaas ayaga ay la qurxunaatay sida kuwaasi bay yeelayaan oo la leeyahay dhiiga la kaamiyo soo dir lacagta kan kuwa waxaan leeyahay ilaahay ka cabsado bedela ayagaaba na dhibay qoryahan hagadinina meesha aad ku gadaysaan qoryaha ku islaaxiya dadka walaalaha waa wada dhalateen Soomaalida wiil iyo abtig wiil iyo ina abtig wiil iyo ina eedadi wiil iyo siidig wiil iyo sodog waa noocaas waa wada qaraabo Soomaalinimadaba kasi koob haddana saana isu dhaleen haddana waa wada jaaro waa wada degan yihiin oo qolo walba waxay la leedahay qolada kale daris bay la tahay haddana waxa la rabaa in aan la isla daaqin xitaa naq hadii ilaahay uu keenay nimcada ilaahay uu keenay iyo raxmaadkaas waxa la rabaa in aan qoyska kale ka soo adeegan magaaladeeda bini aadan saa ku fakari kara oo nool oo maskax leh ma jiro waxa la dhihi karaa aqligu waa hor u tagay marka waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed ku wada wanaagsan ilaahay ka baqo arintan ku islaaxiya ilaahay u hormarsan waayahay waa fariin aad u wanaagsan weey odayaasha dhaqanka waxa la yiraahdaa waa dadka samaha inta badan ka taliya yaa loo yaqaano dad samad ka taliyaal oo ugaasiyadii iyo cuqaashi kala duwaneed ee dhaqanka laakiin geesta kale dad badan waxay u arkaan wiilka qoriga wata waxa qoriga u dhiibaya dagaalan reerkeeni baa wax la yeelay oo reerkeeni baa lagu soo xadgudbay ama dhulka reerkeena la qaatay leh inuu yahay nin magac ugaas sheeganaya ku magac suldaan sheeganaya ku magac garaad sheeganaya ku magac adigu magac isin ruux sheeganaya waa saas inuu yahay waa saas haddii ugaasiyadii iyo madaxdii dhaqanka ee beeluhu ilaa waxaan ognahay reeraha hormuudkoodu waxay ahaayeen dadka waayeelka ee waxgaradka iyo salaadiinta iyo waxay ahaayeen dadka culimada culimadu waa ka soo hadalay iyagu de meesha ku tirsan waa la yaqaan waa saas laakiin waxgaradkii iyo dadkii waayeelka ah ee reerahan madaxda u ahaa ee geedaha intay fadhiistaan garta goyn jiray maanta iyagiiba qoryo u dhiibaya dhalinyaradii waa saas culimo iyo wax kastoon ka soo hadalay hadday kuwaas sida yihiin maxay qaban karaan qoladaas maxaa looga baahan yahay qodaan odayaasha ee ugaasiyada iyo nabadoonnada way soo maaha horta alladina yufsiduna fil ardi wala yuslihun uma baahnin waaba israacinaya anigu wax allaala wixii ardada fasahaadinayo waxna aan hagaajinaynin ha weynaado ha yaraado nooc raba ha ahaadee ma u baahnin waa kuwan ka qayla dhaaminayn waxaadna ogaan kartaa si wiil geel jira ah sheekh aan ka dhaxgalay waan ka xumayna ka galbeeyay wiil geel jira ah iyo odaygiisii oo isku daaban cidda wax ka qaban karta waay ana ba ku soo wada wax ka qaban karta cidda wax ka qaban karta waxay tahay iskaashi inta xun looga hortagayo inta fiican oo israacda bas inta fiican baa ka badanday magaalo tuulo inta ku nool markii aad xisaabiso sheekheeda iyo hadii la ku rooyaa midka xirowga iyo sama jeclaha iyo dadkaas markii la isku urusho inta fidnada rabtaa 3 iyo 4 bay noqonaysaa ee waxa meesha ku jira ma taqaana waan ba loo dhaqaaqay dibka jira waa intaas odayo la og yahay inuu fidna wado yaan lahayn ka joog wiilkii la og yahay inuu fidna wado adaama hadda ku tusaaleynay hal wiil baa soo dilay caaw tago qoyska islaamka soo dilay halkaanu ka maraya cidiisi iyo odayaashiisi ilaahan kugu dhaashay miisan awoodin ho way awoodan Soomaa waa keligii ogow dadkii waa ka wada xun yihiin intay biraan baa xilin tolka iyo waxaan direynaa baa arinta xalal la sameeyay waa ka xunna war waad ka xuntiin waa run horta asaga marka hore soo soo mariya kaliya waxa maqan dhiifanaantii iyo ma garanaysaa baraarugii baa maqan oo mid waxa ku dhex jira leh laba nin oo hore naga qaba war ma dhamaanaysa taasi baan leenahay ma dhamaanayso taasi wacda la waana dhaar nin walaalkii soo dilay oo islaama adna wax ku tiray
aabaha gadaal marsanaya ma ku tarayo lagama rajo qabo waxba kuma taray ma ku tarayo lagama rajo qabo inuu adigu dilana waa halis adiga inuu ku dilo waaba soo dilay walaalkiis inamal mu'minu ikhwa walaalkiibu shacbaad ku soo dhufay dhowr walaal xataa inuu soo laga suuragal waxba ku tari maayo wax ku tarayo gubasho ah inaad ka qaadayso ma jirto iska fogay baan leeyahay waa mahadsan tahay dhawaan Soomaalidu waagii hore inta badan inkastoo hadda waagii hore la joogin hadda la joogo dana Soomaalidu waxyaabaha aad u tixgelin jirtay waxa kamid ahaa xilliyada ama ay dagaalantay qabaa'ilada dagaaladoodu way iska jireen mar walba taariikhan soo gaadhnay to inaan soo gaadhinba waa la sheegaa laakiin waxyaabaha birimageydada la yiraahdo Soomaalidu way iskama dili jireen tusaale dumarka kale culimada kale waayeelka kale iyo dad noocaas lama dili jirin gaar ahaan dumarka laakiin hadda waxaad moodaa in islaanta ka dilay taaganta shalay bay noogeen galgaduud wixii ka dhacay oo afar gabdhood oo hooyo iyo saddex gabdhood oo dhashay lagu dilay kaaga sii darane nimankii inta la soo qabto maxkamad la keenay yaa la yiri qoriyaha wax ku dilayna waa kuwana iyaga inay wax dileen ma hubno ya oo in la iska fasaxay qaar ka xabsiya lagu xukumaan maqlay yaaba laga yaaba waxa sheekh dhacaya dhaqan guurkan xay ka yimid wuxuu ka yimid midka hadda wax dilahaya walaalkii ka weynaa ka soo gaar waxa la yiri walaalka maartay orgiga ma tahay ariga ma ka tahay orgiga markii maartay xoogaa maartay uu ma garanaysaa roob iyo inta uu daan ariga ku dhex jiro lubu inta saas yiraahdo kaadi afka isaga shuba kaadi afka isaga shuba waa la weydiiyay waxa la warheed xagee afka isaga kaadinaysa aabahay aan ka soo gaaray orgiga ka weynaa isaga dhalay oo aabihiisa kaasa ka soo gaaray asagu ka soo arkay Soomaa ninkan yarka ah maalintii u horeysay ee birimageedada noocan oo kala la bilaabay hadii tiirka lagu xiri lahaa no qof damba ma dhaqaaqay kii la daayay buu arko la degan oo xagga ka ah kii kale oo haddana waagii la dilay oo xagga ka ah waa dhaqan guur diintii islaamka markii culimadii ka fariisatay baa siday rabta loo maamulo oo adeer waxaad ka warqabtaa in caadi looga adeegtay diinkii oo bedel badan uu jiro oo waxyaabo badan la bedelay culimadiina ay indhaha ka fiirinayso maxaafil ay isugu imaanayso mawduuc kale ay wadataayo wadaad kale mid walba ku dhagan nab oo saaray laga mashquulay adigu waxaan la yaabay wax kamid bal meesha halkaan aad ka aadaysid midaan weyn oo korkaaga ka curatay maxaa la arkay laado dhibka badan oo inta wadaad maxaadarayo jooga ilaahay xaqiisa adii ay ku roogay jariimooyinka weyn oo la geeyay intaad wadaad fog leedahay kiriya ka oo hadda aan wax kala lahayn warkan muxuu war meeshaan dadkan u baabay fiiris hoosta maxaa u diiday culimada meesha aan leeyahay waa meeshay galeen sheekh waxa soo dhan hadda meesha nimanka markii la soo qabto waxa la rabay maxkamadda inuu joogo nin sheekha oo faqiiha oo caalim ah oo xukun diimeed dilay gureen saara dadku way ku raali noqonayaan ilaahay markuu leeyahay walakum fil qisaas hayaat ya ulul albaab ku aqliga dheer lahow nolol bay ineen tahay maxaa horta laga wadaa nolosha waxa ugu horeeya waa nabad soo garmaysa iimaankayga noo badbaad islaamnimadaada ku badbaadaysa waxa weeye cuqdad baa laga raysanaya boqol haduu dilo oo keligii dilay la dilo mad waa nabad marka meeshaan waa doorka culimada aad uga dhiman ee waxa la fariisinaya maxkamadda rag kale lagu keenay nin jeclaysi iyo awood qaybsi reehbal adiya u fadhiya halka u fadhiya $200 baa la fiirinaya meesha ku jirta maba la fiirinayo mujtamacaan baabaayo maslaxada marka tan maxay sii kicinaysaa marka hadda waaba haday noqotay in ayagu dilay haddana saan la yeelay haddana fidna kale sii kicinaysa oo abuuraysa marka waa sida aad sheegayso doorkaas dhaqankii Soomaalida awalba dhaqanka Soomaalida hore muxuu ahaa matalan diin buu ku salaysnaa marka runta ku sheego anigu waxaan waayay kula hadlay wax Allah hooyada waa dhimatay Ilaahu naxariiso wallahi waxay sheegi jirtay oo dhan oo caadada noo aha oo aan diinayn waa waay marka diinka dhex galay wax Allah waxay sheegi jirtay oo dhaqan annaga noo aha dhaqanku sheekh horta waa sharci in la ilaaliyo aan ku hormariyo wal aslu fi caadatina ibaha hatta yaji'a sariful ibaha way dhaqanku in la ilaaliyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi baa dhaqanka ilaaliyo ma cidiin kaga dadaal badan yaa jirta iyo xaq kaga dadaal badan ma garanaysaa baasha la yadabada hasacagaleed
mid ka mid ah asxaabta qaar soo dishay kaasaa la soo habaystay oo nabiga waa loo dhiibay maya iga daayo yaa rasuul ma xaaraan baa maya waa xalaal cuna maxaa caado uma leeyin biyo dhaqanka ayaa ka mid ma ka mid saarka meeysi caadada iyo dhaqanka in la ilaaliyo asagoon diinka khilaafaynin min diin weey sheekh marka dhaqankii waxaba loo gadiyay markii diinka xaqiisa laga soo galo culimadii ka fariisatay khiyaarul khalqi udatuhum wa siwaahum min hamajil hamaj bay noqday waxa la wixii kala dabka isaga dhaceen dabka ku dhacay waayahay gabagabadii Sheekh Cabdiraxmaan haddaan ku oran lahaa bal bulshadan la hadal ama culimada ha noqoto ama bulshada caadiga ha noqoto ama odayaasha dhaqanka ha noqoto ama maamulada iyo dawladaha ha noqoto fariin u dir haddaan ku oran lahaa oo chance ka faa'iideysanaya maxaad oran lahaa sheekh waxaan oran lahaa horta dhammaantiin Soomaali oo dhan waxaan ugu baaqayaa aan Ilaahay ka baqan al-awwal aan Ilaahay ka baqan kuwa mas'uuliyadda haysto raaciyaal baatin Ilaahayna waa kula xisaabtamay Ilaahay uga baqa mas'uuliyadda haysataan baa leh kuwa culimada waxaan leeyahay Ilaahay ka baqa oo dhiiga korkiina lagu daadinayo inta waxa kale iska deysaan iyo isqoloqolaynta iyo meel kala fariisiga israaca oo arinta ku bax kuwa ganacsatada waxaan leeyahay Ilaahay maalkiina uga cabsada Ilaahay idin siiyay ee idin ku sharifay meel fiican galiya waa la idin kula xisaabtamaya kuwa hadii la ku dhalinyarada waxaan leeyahay idinku waa yaryartihiin Ilaahay ka cabsada walaalka hadilin ee ka joog dabkan ayaan lagu shuban adduunkiina hadeeru ku cusub yahay guurso oo dhiso oo cibaadeyso alla kaga baq waxaan u dirayaa odayaasha inta kale leh Ilaahay ka baq hogaan baatiin maalin kasta waxa arkaysaa suldaan lagu caleema shubayo Ilaahay ka duubka Ilaahay uga baq lagu dhiibtay waan leeyahay meel khayr laha Ilaahay kugu ayidayaa lama tan gabagabada waxaan leeyahay bulshada caalamka oo dhan waxaan ugu baaqayaa waxaan xitaa ugu baaqayaa nimanka dadka miidiyaha ku jira ugu baaqaya arrintan ka wada qayb qaadan annagoon u kala harin gabar iyo wiil iyo sheekh iyo shaab oo hogaaminayso culimadu iyo dadka yaqaan wadada loo maro aan ka qayb qaadano maalkeega iyo xooggeega iyo maskaxdeeda iyo caqligeega halkaas aan galino Ilaahayna waxaan weydiisanayaa asaga Raxmaan oo Raxiime arinta inuu noo sahlo oo noo saqiro oo noo fududeeyo saasan Ilaahay weydiisay alxamdulillah tanawala salatu wa salam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ilaahu Raxmaan oo ilaahu Raxiim oo ilaahu Kariim dhiigaan daadinahay ilaahu naga jooji ilaahu rabbi oo qulubtayada ilaahu isu soo jeed ilaahu adaa Raxmaan isku saay ka yaa soo jeed ilaahu maxabo iyo galkacayl iyo walaaltinimo aan u wada dhalanay oo diimeed oo hadii la kuna nasabeed oo dagaan oo daris intaba ilaahu nasiib ilaahu naaqbal ilaahu naajib dadka miskaxdoodana mid caafimaad qabta ilaahu ka dhig tawfiiqdan ilaahu nawaafaji alxamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim إلهي دعاء إنه أقبل أدب ما تسيه شيخ عبد الرحمن محمد داهر أو الشيخ عبد الرحمن قاشع لو يقنا أيها مقالة نيروبي أيوه يقول رمي شيخنا بالشدة الصومالية جودهان تدا أيوه فرين تاو دري دي جاس أيوه ماركتي ديلكاس حق درها إن لتشوتشي أيوه ودري ولماذا الصومالية نسيجار أيوه الله ديوان رجعني يا ولماذا إن أرنتاسي أي ماركتي كتشوا بدونان أولي بس فعله أيوه كتشوا بدونان ترمرك لكل بدونه نبت قليل